السلام عليكم. عوا موضوعين waa ka yiri duwan yahay muuqaalada aynu halkan ku wadaagi jirnay. Waxaanu ku saabsan yahay badaha waaweyn ee caalamka. Haddaba badahaasi ayaynu mid isku dul taagi doonaa. Daawasho wacan. Badweynta Pacifica. Badweynta Pacifica waa badweynta ugu weyn caalamka marka loo eego kuwa kale. Magaca badweynta Pacific waxa uu bixiyay badmaax Boortaqiis ahaa, magaciisuna uu ahaa Ferdinand Magellan. Markii ay taariikhdu ahayd 1522 miilaadiga. Magaca Pacific waxa looga jeedaa anbaba uu macnihiisu yahay degan. Run ahaantii waa badweyn degan, xiriirkuna aanay ku badnayn. Taasina waa sababta loogu bixiyay magacaasi. Badweynta Pacific biyaheedu waa biyo dhanaan oo aad u baaxad weyn, isla markaana qariya 46% oogada biyaha dhulka. Badweynta Atlantic-ga. Badweyntani waa badweynta labaad ee ugu weyn badweynada caalamka, waxaana ay ku fadhidaa baaxaddan 106,400,000 oo kiiloomitir laba jibaaran. Waxaanay qarisaa 20% oogada biyaha dhulka. Badweynta Hindiya. Waa badweynta saddexaad ee ugu weyn badaha adduunka, taasi oo dhacda bariga qaaradda Afrika, koonfurta Aasiya ilaa galbeedka badweynta Atlantic-ga. Badka ay ku fadhido badweyntani waxa lagu qiyaasaa 73,481,000 oo kiiloomitir laba jibaaran. Waxaanay waqooyi galbeed kaga xidhan tahay marinka Gardafuul. Waxa kale oo xusid mudan in badan loogu magac daray dalka Hindiya. Badweynta Koonfureed. Badweynta Koonfureed. Badweynta Atlantic-ga ama badweynta Koonfureed waa badweynta afraad ee ugu weyn caalamka. Waana mid ka mid ah 5 badweyn ee ugu waaweyn adduunka, waxaana dhacdaa koonfurta adduunka sida magaceedaba ka muuqata. Badweynta Waqooyi. Badweynta Arctic ama badweynta Waqooyi waa badweyn dhacda waaxda waqooyi adduunka, taas oo ku wareegsan gobolka Arctic iyo deegaanada cirifka waqooyi ee adduunka. Sidoo kale badani waa tan ugu yar 5 badweyn ee caalamka. Wassalaamu calaykum.